kusoo dhawow shabakada Sirta Media haddii ay tahay marka kuugu horeysay subscribe saar gambaleelkana furo mahadsanid waa haweenimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay 5 bisha Abriil sanada 2020 kusoo dhawaada warka haweenimo ee shabakada Sirta Media 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 tan iyo markii uu soo baxay damaca madaxweyne Farmaajo ee ah muddo kordhin loo sameeyay hay'adaha dawladda oo xilhayntooda ay ku egtahay 7 bisha Febraayo sanada 2021 madaxweyne Farmaajo si uu garab military u helo wuxuu raaligeliyay dawladda Itoobiya isla markaasna uu u fuliyay dana aysan ku dhiiran karin madaxdii ka horeysay madaxweyne Farmaajo intii uu raaligelinayo dawladda Itoobiya waxaa taariikhda galay inta la og yahay qodobada soo socda dhiibistii muwaadin sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed haliyay dhiigiisa u horay difaaca qarannimada Soomaaliyeed Korneyl Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax hibeynta 4 dekadood oo si shuruud la'aan ah loogu saxiixay Itoobiya heshiis qarsoon oo uu la galay dawladaha Itoobiya iyo Eritrea taas oo halis ku ah dalka dadka iyo dawladnimada Soomaaliyeed heshiis uu Itoobiya kula galay in Soomaaliya ay ka mid noqonayso shucuubta Itoobiya isla markaasna ay hal dawlad ku midoobayaan difaaca tacadiyada bini'aadanimo ee geystaan ciidamada Itoobiya ee sida sharci darrada ah ku jooga Soomaaliya madaxweyne Farmaajo sidoo kale wuxuu fuliyay weerar qorsheysan wuxuu halis geliyay nolosha madaxweynayaashii soo maray dalka iyagoo safar u ah dalka gudihiisa oo ay sideen gargaar bini'aadanimo wuxuu xabsiyada Muqdisho ku guray siyaasiyiinta mucaaradka wuxuu dil qorsheysan ku dilay nabadoon iyo saraakiil sarsare oo ciidan ah kuwaas oo u arkay inay khatar ku yihiin kursigiisa maanta madaxweyne Farmaajo wuxuu sameynayaa isku daygii uu ku xaqiijin lahaa muddo kororsi haddii ay dhacdo dalku u horseedi doono burbur iyo in uu dagaal sokeeyo aado guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee qaranka ayaa ku dhawaaqay inay hakiyeen howlaha diyaargarowga doorashada 2020-2021 wixii intaasi ka dambeeyay dhammaan saamileyda siyaasadeed waxay muujiyeen inaysan suurtagal ahayn amaba aan dib loo dhigi karin doorashada Soomaaliya kama dilaacin cudurka corona marka laga reebo 3 kiis oo la sheegay in la hayo suurtagal ma noqon kartay in dib looga dhigo doorashada iyadoo marmarsiyo laga dhiganayo waxa laga hortagaya cudurka corona tusaale dawladda South Korea oo ah wadan uu ka dilaacay cudurka corona ayaa xaqiijisay inay doorashada baarlamaanka u dareeri doonto 15 bishan Abriil ee sanadkan 2020 Soomaaliya waxay mar labaad wajihi doontaa dagaal sokeeye haddii doorashada dib loo dhigo waana halis weyn oo soo wajahday dib u yagleelida dawladnimada Soomaaliya hore ayaa arintan oo kale uga dhacday Soomaaliya markii madaxweyne Maxamed Siyaad Barre uu diiday inay dalka ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah taasoo dalka dhaxal siisay 30 sano oo colaad ah lana heli la yahay Soomaali oo midaysan talada mar bay la gudboon tahay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya waa in ay meel iska dhigaan danahooda shakhsiga ah iyo kursi jaceelka Soomaaliyana u ogolaadaan inay hore ugu sii socoto nidaamka dimuqraadiyadda ay ku talaabsatay dhanka kale wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye ayaa si weyn uga hortimid qorshe dawladda Soomaaliya ka damacsan tahay in ay ka fuliso garoonka kubadda cagta ee Muqdisho Stadium guddiga heerka sare ee ka hortagga cudurka sida weyn ugu faafaya adduunyada ee corona ayaa sheegay in garoonka Muqdisho lagu karantiili doono ciidamo loo soo tababaray dawladda Soomaaliya oo laga keeni rabo dalalka Sacuudiga iyo Djibouti wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ayaa sheegtay in ay talaabadaasi tahay mid aad u qaldan oo aysan marnaba aqbali doonin iyadoona guddiga ugu baaqday inay dib isugu laabtaan guddiga heerka sare ee ka hortagga cudurka corona aad iyo aad bay idinkaga qaldan tahay ee dib isugu laabta ayay tiri wasiir Khadiija Maxamed Diiriye ayaa sheegtay in garoonka ciyaaraha ee Muqdisho Stadium aan loo cayimin xarunta karantiilka dawladda iyadoo arintaasi ku tilmaamtay inay tahay xadgudub lagu sameynayo shaqada ay dawladdu hayso garoonka ciyaaraha Muqdishona ma ahan goob loo cayimay xarunta karantiilka dawladda waana xadgudub shaqooyinka ee hala joojiyo sidoo kale waxay sheegtay in Stadium Muqdisho ay waardiyeeyaan boqolaal ka tirsan ciidamada booliska dawladda Soomaaliya sidaas darteedna aysan noqon karin goob lagu karantiilo dadka looga shakiyo cudurka corona tan labaad Stadium Muqdisho boqolaal ciidanka booliska Soomaaliyeed ah ayaa waardiyeeya sidoo kalena boqolaal kale oo dhalinyaro ah ayaa ka wada howlo dayactire iyo dib u dhisa sidoo kale ajaanib aan u keenay howlaha garoonka oo ku xaadiraya maalin kasta mana noqon karto goob karantiil horeyna looma weydiinin ayay hadalkeeda kusoo gabagabaysay weli madaxda ugu sareysa dalka kama aysan hadlin khilaafka ka dhex qarxay wasiir Khadiija iyo guddiga heerka sare ee ka hortagga cudurka corona waxaana wasiir Khadiija loo arkaa inay ka mid tahay wasiirada ugu awoodda badan xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug mudane Cali Daahir Ciid ayaa xalay cashi sharaf u sameeyay xildhibaanada haweenka ah ee ku jira baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug iyo qaar ka mid ah haweenka golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya cashi sharaftan ayaa ku saabsaneed hambaliyada doorashada guddoonka cusub ee haweenka baarlamaanka Galmudug cashi sharafta ayaa waxaa ku sugnaa haweenka baarlamaanka oo ay hogaaminaysa Marwo Faadimo Fande
gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug sidoo kale waxaa cashi sharafta ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan haweenka golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane cali daahir ciid ayaa waxaa haweenka baarlamaanka uga hambaliyey doorashada hoggaanka baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug waxa uuna u rajeeyey wada shaqayn iyo wadajirka galmudug oo ay haweenka hormuud u yihiin madaxweyne ku-xigeenka ayaa guddoonka kokos u ballan qaaday in xukuumadda galmudug ay garab istaagi doonto guddoonka cusub ee haweenka baarlamaanka galmudug waxa uu sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka kula dardaarmay haweenka baarlamaanka galmudug inay ka shaqeeyaan horumarinta haweenweynaha galmudug intaasi waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyey ee ilaa ay haatan ina soo gaaray haddii ay ku dhaafeen wararkeenii hore ee xiisaha lahaa dib u dhegaysa iyagoo rogaal celisa siyaasiga mayalka adag ee cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa waxa uu soo saaray maanta duhurnimadii qoraal uu kaga hadlayo siday muhiim u tahay in doorashada dalka aysan dib u dhicin iyadoo marmarsiyo la samaysanayo qoraal u muuqday hanjabaad iyo dhiga hadal oo uu soo dhigay bartiisa gaarka ah ee Facebook ayaa u qornaa sida tan shacabka koonfurta Kuuriya ama South Korea oo kamid ah wadamada uu coroonaha sida weyn u galay ayaa 15 bishan Abriil aynu ku jirna doorasho u dareeraya iyadoo xaaladii ugu adkeed lagu jiro ayaa xisbiyadu ku loolamaya 300 oo kursi ee xildhibaanada golaha shacabka ka kooban yahay ayaa loo ogolaaday in ay 2 toddobaad ololahooda doorashada ku sameystaan si loo ilaaliyo badqabka shacabka guddiga doorashooyinka qaranka waxay dalbadeen in dadka codka dhiibanaya ay afdabool ama maaska xirtaan lana cabiro heerkulka jirkooda marka ay goobta codbixinta soo gaaraan waxaa kaloo la siinayaa alkoolada jeermiska dishe ee gacmaha la marsado iyo gacmo gashidka loo yaqaan golofis koonfurta Kuuriya dadkeeda waa 50 milyan cudurka corona doorasho kama celinin ma cid kale ayaa laga yeelayaa in doorasho lama qaban karo ku marmarsiyooto ciddii corona ku marmarsiyoon lahayd koonfurta Kuuriya ayaa kadabkeeda goysay ma jirto cid aqbalaysa muddo kororsiga maalmaha miiska hoostiisa lagu abaabulayo haddii doorasho qof iyo cod la qaban waayo tii 2016 oo madaxda haatan joogta xilka ku yimaadeen ayaa la qabanayaa haddii aan la qaban karin waxaa la qabanayaa tii 2012 la qabtay haddii aan la qaban karin baarlamaanka ayaa madaxda dooranaya isagana sanad kadib ayaa doorashadiisa la qabanaya ma jirto meel ama si doorasho loo baajin karo ayaan la isceebeyn oo magac la iska dilin dalkan yaan la gelinin halis iyo hoog hor leh dhanka kale ila lagu kalsoon yahay ayaa u sheegay shabakada sirta media in shirkii u dhaxeeyay Axmed Madoobe iyo golaha isbedel doonka Jubbaland oo ku soo dhamaaday fashil iyo in lagu kala tago kulanka ayaa ka dhacay magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaana looga hadlayay aayaha Jubbaland iyo falcelintii doorashadii ka dhacday Kismaayo bishii Agoost ee sanadii 2019 warar ayaa sheegaya in shirka lagu kala tagay isla markaana qodobada laga hadlayay la isku fahmi waayay kulanka ayaa la sheegay in wax la isku qabtay ay kamid ahaayeen in doorashadii Axmed Madoobe gale uu dib ugu laabto balse uu diiday waxaa la soo tabinayaa in kulamo kale loo balamay si baa la yiri loo guda galo xalka gaarista xasarada Jubbaland doorashadeeda ka dhacday sanadkii hore dhanka kale albaabka hore ee madaxtooyada Villa Soomaaliya ayaa waxaa maanta ka dhacay banaanbax ay sameeyeen qaar ka mid ah xaasaska askartii u geeriyootay difaaca dalka sanadihii la soo dhaafay habeenkani oo xirtay qaybo ka mid ah jidadka madaxtooyada soo gala ayaa sheegay inaysan wax mushaar qaadanin muddo 3 bilood ah ee la soo dhaafay xaasaska askartii u geeriyootay difaaca dalka ayaa sheegay in laga soo xirtay dhammaan xafiisyada dawladda sidaas darteedna ay banaanbaxan u sameeyeen iyagoo codsaday in mushaarkooda la siiyo xaasaska ayaa cod dheer ku sheegay in aysan haysanin lacag ay raashin ugu iibiyaan ilmihii ay ka geeriyoodeen askartii u dhimatay difaaca dalka Soomaaliya arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dhowr jeer sheegay in ay si gaar ah ugu warqabi doonaan qoysaska askarta ka geeriyoodeen sidoo kale waxay arrintan niyad jab weyn ku tahay ciidamada hadda ka tirsan askarta dawladda oo cabsi ka qaba in haddii ay geeriyoodaan ay ku dhacdo qoysaskooda midaan oo kale guud ahaan inta ayaynu ku soo gabagabeynaynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakada sirta media wixii warar dheeraad ah ama sir qarsoon oo soo kordha waxaad si rasmi ah uga heli kartaa shabakada sirta media Sirta media, sirta media. Sirta media, sirta media. Sirta media, sirta media. Sirta media, sirta media. Waagi baryaba wixii soo kordhiya waxa jira arlada. Sirta media, sirta media. Sirta media. Waagi baryaba wixii soo kordhiya waxa jira arlada. Sirta media, sirta media. Sirta media. waxaasi waafiya kugu soo warinaya warbaahinta
soo warinaya warbaahinta sirta media sirta media sirta media adigoon wareerin warar sugan oo xaqiiqa waxaad ka helaysaan waa sirta media kadhigo weelka ruma sirta media sirta media sirta media 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 adigoon wareerin warar sugan oo xaqiiqa waxaad ka helaysaan waa sirta media kadhigo weelka ruma sirta media sirta media sirta media 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 sirta media media